بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعان ونكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga Midnimo Media oo toddobaadkiiba aan halkan idinkaga soo baahino maalin walba marka laga reebo maalinimada Jimcaha. barnaamijkeenan waxaan maanta wareysi kula yeelan doonaa Maxamuud Cali Ibraahim oo kamid ah barayaasha Soomaaliyeed wuxuuna inooga qisoon doonaa sheekooyin xiiso leh iyo la yaab iskugu jira oo inooga sheekeen doono kuwaasi oo soo maray muddadii baraha ahaa. barnaamijka waxaa qeybaha farsamada iyo kaamirada ka hagaajinaya Axmed Xasan Suleymaan, tabinta waa Faarax Cabdi. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga Midnimo. هاي داوديال waxaan guda galeynaa barnaamijkeena bandhiga Midnimo Media. saan hordhaca barnaamijka kugu sheegayba waxaa barnaamijka maanta marti noogu ah oo nagala qayb galaya Maxamuud Cali Ibraahim. Maxamed soo dhaw. Farxad oo maasan tahay waa ku dhawaad Midnimo Media inaan xaruntii maanta ay wacsutiin aad u maasan marka hore aniga iyo daawayaashaba inoo sheegtaan nololeedkaaga oo kooban. runtii tarnoleedka hada soo koobo magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cali Ibraahim laakiin macnaheedu qaarkood dadka Soomaaliyeed ay yaqaan laga yaabo Sadiyaan. runtii waxaan ku dhashay gobolka Boqol gaar ahaan xaruntiisa Cudur dugsiga dhexe hadda waxbarashada ka hadlan dugsiga dhexe waxaan ku soo qaatay dalka Kenya gaar ahaan Mandera. dugsiga sare waxaan ku qaatay caasimada dalka Muqdisho. kadib waxaan waxbarashada markaan dugsiga sare ku dhex jiray aan bilaabay macalinimada ilaa haatan ku dhex jiraa adiga dhawaad 5 sano. runtii waan ku faraxsanahay shaqo ay tahay waan ku faraxsanahay. waa tahay Maxamed su'aasha xigta aan jeclahay inuu waxay tahay xirfadda macalinimada waxay ka duwan tahay xirfadaha kale. runtii Faarax waa maasan tahay xirfadda macalinimada kale yiraahdo way ballaaran tahay. marka hore horta xirfadaha kale la mid ma aha marka loo eego dhanka sharafta qof bani aadamka aqoontiisa iyo sidoo kale qof bani aadamka waa macallin marka la yiraahdo bulshada dhexdeeda ku leeyahay saameyn aad u ballaaran. waana ardayga Soomaaliyeed oo ubadka Soomaaliyeed wuxuu u noqon karaa aabahooda labaad bulsho kasta haddii macallin la sii jirin nolol la sii jirin marka saas daraadeed macallin uu ka duwan shaqada kale dadka kale qabtaan. waa tahay adi ahaan xirfadda macalinimada goormee bilowday? runtii Faarax waa maasan tahay waxaan bilaabay shaqada macalinimo waxaan bilaabay 2015 ilaa haatan waan ku dhex jiraa. waxaan ku bilaabay markii hore reefa kule qof loo yaqaanaa reefana ka soo bilaabay basic yani qofka bani aadamka hore laga bilaabi karo ilaa markaa adiga bulshada dhexdeeda la qabsato dabeecadooda iyo dhaqankooda markaa isfahamtiin ama ardayda aad fahamto kadib aad u gudbi kartaa heerka sare. marka kow waxaan kusoo bilaabay qaab reefana kusoo shaqeynayay 1 sano oo kale. markii dambe markaan adiga 1 sano aan joogay oo 1 dufcadood ama aan ka soo saaray kadib aan u gudbay dugsiga sare ilaa haatan macalinka maxaa ugu dhaliyay inaad noqoto macallin bare? waa santahay Faarax waa su'aal aad u muhiimsan. macallin marka la yiraahdo yani sababaha ugu dhaliyay waxay ahayd waxaan ogaaday bulshada Soomaaliyeed inay u baahan yihiin qof wax bari kara haddana og xogaalkooda oo soo ani bulshada wax u soo bartay haddana ayagaan baraa. muhiimaddu waxay ahayd inaan yani waxaan soo barto ummadda ugu dhaliyay oo qof walbana aan lama caamili karo. macallinka marka la yiraahdo dabeecad waxaa jira macallimiin yani macallimiinta ay u kala dabeecad karaan. macallinka waa wuxuu astaan u ah hadduu rabo inuu macallin noqdo qofka kow waa inuu ahaado horta qof bulshada la dhaqmo dabeecadooda dhan kala fahmi karo. dadku way kala duwan yihiin dabeecad ahaan waa mid dabeecadiisa iska dhexdhexaada jirta mid iska sareysa mid aan dabeecad qof aan yani dabeecad la dhaqmi karin. waa tahay Maxamuud goormee soo gaartay inaad macallin noqoto? waa maasan tahay dad wax bari karta. waa maasan tahay waxaan is ogaaday inaan qof hortooda istaagi karo bulshada hortooda wax ka sheegi karo wax ka dhaadhicin karo. waxaan ogaaday markaan ahaa dugsiga dhexe sagaalaad xilligaas dugsi sare maahan laakiin dugsi dhexe u ahaa sagaalaad anoo ah waxaan is ogaaday inaan noqon karo macallin bulsho horteeda inaan istaagi karo waxna fahamsan karo. kadib waxaan u gudbay marka inaan qaab yani training ahaan aan kusoo barto kadib baraaf sida ku galo sidii aan macallin ilaa haatan. waa tahay xiisadaada kugu horeysa ma xasuustaa? Faarax waa xasuustaa. waxay ahayd xiisad waxay ahayd adiga xilli duur ay ahayd xiisad ugu horeysay arday aan u galo. markaan u galay horta kow
inta macallimada aan kusoo biiray horta ka hor waxaan ahaan jiray dugsiga dhexe dugsiga dadka ardayda u firfircoon oo iskuulka dhigto hel baabuur hadday noqoto bandhig hadday noqoto markaas dadku ugu horeeya sidaas aawadeeda يعني يقوم مسلم أنا أعرف برضه يستوعب شيء النهار وصار برضه برضه ترين وصار دوكسي سريع أما دوكسي برضه بيجينا هاي أما سكندري مسبرم الوقت برضه معلن غلط يعني مشكلة ما ولا كل مركز أساس ترى دوران بالله في حس الدور أرضي إيجلي كدي بقى سريان وحكون نقدي وحاجة ما حصل أرضي مركز كلاس والله أنا فصل كذا هاي والله ترى ذا حل جالس تمن أرضي هاي فصل أنا وحكت عدعيو هير نوعيتك قاركود جامعين هاي هذا جامعين هاي قاركود قار دوس سريع قار دوس دحين قار كل من يجين قار واحد أرضي قاركود واحد دوسي على الجيم لكن دوس قرا لكن قالوا أنا برا بدي يجي معاه مرة قار أنت سأسكون ما تدري ما أنت صار horta marka hore kuu sheego anigu waxaan dhigayaa barnaamijka kusoo baxay luqadda Englishka diblooma ka qaatay marka dibloomada ka qaatay kadib waxaan isku dayay inaan macallin noqon karo ayadii aan barnaamijka adiga ku dhawaad 5 sano xilligan maanta aan joogo kadib maadadii aan macallin ka tagay macallin markuu ka tagay anaa ii geeyay kadib adiga maalintii ugu horeysay kule qof banaada horta markuu xisad qof adiga aanan aqoon markaa xisad au gasho kule horta jawi wada tilmaana laakiin waa horta falilahi alxamdu dhib kala noqonay maalintii ugu horeysay maadadii aan u sharxay iyo faa'iidada ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay kadib way ku qanceen sidii horta aan ku sii watay macallin inay qanceen ardayda si ku inay qancaan inay ka qanceen ardayda maalinta maadaama maalinta ugu horeysay yahay oo aad wax soo bandhigto inay ardayda kugu qanceen in kala soo kooda waa santahay fara horta ardayga inuu qancin karo ku ogaan kartaa marka adiga sida aad bixiso oo wajigiisa ka fiirsan karta qofka uu fadhiyo horta aad u jawaabo inuu waxaan fahmayo in kale waxaad ula soconaysa logical ahaan hadduu uu mashquulsan yahay oo buugna aan kala furnayn oo waxna aan akhrinayn waxna aan qorin adina ku soo eegayay way ka dhigan tahay heesta ma baahan laakiin markuu adigu soo fiirinayo yani ha eyes contact yahay macallin markuu fasal u taagan yahay arday hadduu dhinaca kale u mashquulsan yahay macallinka lama socdo marka waxaad ku ogaan kartaa ardayda fasalka markay fadhiyaan intay kula socdaan in kale waxaad ku ogaan kartaa inaad adoon su-aalo weydiin waxaad ku ogaan kartaa wajooda markay banaanka la soo baxan ama adoon banaan bixin kartaa oo hor adoo fasal ku jiro waxaad ogaan kartaa arday inuu fahmin karo asaa weydiin ama buuggiisa fiirinaysa inuu qorin karo marka sidaasaan ku ogaan watahay daawadayaal weli waxaad nagala socotaan Midnimo Media barnaamijka bandhiga midnimo ayaad la socotaan haddii aad haatan nagu soo birtay fadlan subscribe dheh lana wadaag oo share dheh saaxiibadaada macluumaadka halkan ka soo baahinayno gambaleelkana taabo si ay kusoo gaaraan si maalinlaah iyo saacad waliba waqti kasta oo aad soo booqato page Midnimo Media waa tahay maxamed su-aasha kale aan ku weydiinayo aan jeclahay waxay tahay caqabado badan ayay leedahay xirfadda macalimiinta caqabadaha ugu waaweyn oo la tilmaamo waxaa qaybka in ardayda iyo macallimiinta isku dhacaan ma dhacday weli adiga inaad la kulantay ama aad macnaha aad ismaandhaafteen isfahweyseen ardayda horta farax baa masan tahay qofka bani aadamka markuu macallin yahay caqabadooyin kaga duwan dadka kale macallin uu ku dhex jiro sababtoo arday kala duwan dabeecado kala duwan meel kala duwan ka imaado afasal uu keena run ahaantii aniga shakhsiya markaan ka hadlo arday 5 sano oo macallin ah arday isku dhacay inaan wado xafiis aan geeyo ama ani isku gacan qaado waxaa taasi waxaa keeni karta ardayda markaan la macaamilto dabeecadooda aad kula dhaqanto oo ardaygan dabeecadiisa uu kala dhaqanto kan kale dabeecadiisa aad kula dhaqanto wax problem ka imaan marka waxaa leedahay macallinka Soomaaliga ani weli isku dhac ma sameyn macallinka waxay Soomaaliga waxay dhahaa macallinka waa ciid oo kale haddaad ku istaagto ciid kuma diidayso macallinka saas oo kale waa inuu ahaado qof la jaan qaadi kara dadka jiilka hadda jiro haddana la jaan qaadi karin asagoo ilaalinayo sumcadiisa adoo sumcadda ilaalinayso waa inaad la jaan qaadi kartaa qofka dabeecadiisa intaan fasal ku jirto isku dabeecad maaha xirfadda waa xirfadda baranimada ama macalinimada muddo ku jirta inkastoo ay aad u badnaan haddana ma jeclaanahay inaad xirfad kale ka aado والله هو حرفة عاد كل إن كستور حرفة الصومالي وحيد على معلنه مال لكن ما قاعد يلعب إن كستور تأسيس جرتو أنا كو مركز سوق لاي ما سوق أنا العك كسب ما دارع كسب حاجة وكاسب
may runta marka laga hadlo yani inaan daara ka dhiso ma soo galeen laakiin waxaan usoo galay waxay bulshada Soomaaliyeed inaan wax gaarsiin karo laakiin hadii runta laga hadlo halaan ma ما يسوى بس المعلومات 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 لكن تبع يعني سي طبيعي ما كانوش horta lagama helo wax daare laga dhiso guri laga dhiso daba laga dhiso macallinka marka dugsiga dhexe ahaa macallin wuxuu soo baray ilaa waa arkaa macallin ku dhex jiraan filmdi macallin ku dhex jiraan bashin hadana asoo ka yani dad ka baxay oo meel sare ka gaar wajiraan laakiin qofka asagoo macallin soo marin yani title kale inuu qabto yaata sababtoo ah qofka macallin markuu soo maro dabeecadda bulshada Soomaaliyeed dhammaan way dabeecad oo dhaqanka waa yaqaan hadduu dabeecad ma jiri xitaa haddii mar macallin noqdo dabeecadiisu ay dalbaysaa oo qabsan xirfad kale oo aad ku bedelato macallimada nin muddo ku soo jiray inaad ku bedesho wallahi macallimada way jiri kartaa shaqooyin kale inaad qabato ku hami kartaa laakiin step-ka hadda joogo waxaan ku bartay bulshada Soomaaliyeed dabeecado kala duwan leh arday Soomaaliyeed marka wadada marayso dadaan macallin bilaa ma aha laakiin magacii way yaqaan laakiin problem ma laha waana taas waxay keenaysaa magacii ka dhacay laakiin maalka ma wadano way fiicnaan lahayd in shaqo kale aan keeno laakiin tani waa shaqo aan ku fahansan bulshada Soomaaliyeed inaan wax barno jiilkii aan soo saarno waa midda aan ku hamweynahay waa ku dhex jireen insha Allah ilaa intuu faa'iidooyinka ay leedahay macallimadu maxay noo sheegtaa wallahi faa'iidooyinka macallimadu ay leedahay hore uu sheegay macallinka maal ma dhaxal laakiin magac u dhaxlaa sumcadda bulshada dhexdeeda iyo sidoo kale waxaa kala jiri karto aqoon ku kordhi waa intaas ka baxsan aniga inkastoo mudiir ku soo dhex jiray laakiin weli ma aan arkin tahay maxamed aad baa mahadsantahay tahay guud ahaan daawadayaal waxaan jeclahay in halkan kusoo gabagabeeyo barnaamijka bandhiga Midnimo Media oo maanta uu nagala qayb galay Maxamuud Cali Ibraahim tan iyo barnaamijka xiga nabadgelyo